tartankan ayaa loogu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada ku dhaqan caasimadda Hargeysa gaar ahaan ciyaartooyga degmada 26 Juun xisbiga kulmiye ayaa dejiye siyaasado lagu horumarinayo daayirta Somaliland maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sulteelko ayaa sheegay in tartankan xisbiga kulmiye ugu talagalay inuu kor ugu qaado ciyaartooyga ku hawlan xirfadda kubadda cagta waxaan leeyahay koobkan wuxuu dhac u yahay koobo badan oo lagu qaban doono caasimadda oo ku xigo koobka lagu qaban doono xaafadda Axmed Dhagax koobkaas oo loogu diyaargaroobayo ololaha doorashada iyadoo ay noqonayso cid aynu u dadaalayna codka wada siinayna inuu noqdo musharaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyadoo kooxaha soo baxaana ay noqon doonaan inay isugu yimaadaan koob final ah taasoo lagu wada ciyaari doono xisbiga kulmiye dhalinyartii ciyaaraha wuxuu ka qabtay wax badan waxa ka mid ah garoonkan oo ah ka hadda lagu ciyaarayo waxa ka mid ah muxuu ahaa garoonkii stadiumka oo hoogii la dhigay waxa ka mid ah muxuu ahaa Axmed Macali Haarunka laga dhisay garoomadaas oo dhan waxay ka suurto galeen caasimadda iyo kuwa kale oo la hagaajiyayba iyadoo goboladana laga sameeyay muxuu ahaa garoomo badan gobadani wuxuu had iyo jeer taagad ka dhigtay madaxweyne Siiraayo iyo xukuumaddiisa ay dhahaan tiyo waan ogeyn tooba waa la maadiyay baan leeyahay tadamana insha Allah taala way sii libilaamaysa wasiiradii lagu khasaaray hadii cid lagu khasaaray xukuumadda soo maray ayaa hadda wadani hormuud u ah kuwaas wax caayaya mataasan dhageysan karnaa ma dhageysan karno waxaan leenahay madaxweyne Siiraayo aad baad u maasantay dalka halkaad keentay muusana waa ka sii wadaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Hariye oo madasha ka hadlay ayaa yiri waxa farxad u tahay maayirka oo isagoo maayira maalintii uu la wareegay oo xildhibaanka noqday aanu garoonkani sidan ahayn ee garoonkani ahaa meel bannaan oo aan lahayn maanta xayndaabka aynu ku fadhino aanu lahayn dadweynahana aad baa loogu mahadnaqayaa iska wuxuu qabsaday iyaguna qaybtooda ay ka qaateen ay wax ku tareen ballanqaad dambana maayirku waa idin samayn doonaa in sanadka cusub haddii la hayra waxa qorshayaashooda ugu jira inuu garoonkani noqdo garoon rooga oo lagu ciyaaro oo dadan oo qashaafadiisa leh oo had iyo habeen baynu ku ciyaarno taasina waa mid ballan qaadayo oo maxaa la yiraahdaa maayirka iyo xukuumadda cusubiba ay wada hirgelin doonaan insha Allah kariim inagoo odhan mayno xisbiga kulmiye iyo murashaxiisa doorta oo ma dooranaysan leedin odhan maayo waa degmadii maxaa la horana u dooratay xisbiga kulmiye imikana 100% dooran doonta murashaxeeda iyo xisbigeeda kulmiyaba waxa looga fadhiyaa inay maxaa la degmooyinka kale iyo dalal iyo gobolada kaleba ayagu soo shukaamiyaan oo maxaa la yiraahdaa ka soo kaambeen gareeyaan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada 26 Juun iyo ka garabka dhalinyarada xisbiga iyo ciyaartooy hore oo kubadda cagta ka fadhiistay ayaa tilmaamay qiimaha ay leedahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada oo ah halbuulaha qaranka Somaliland